dahabka qiimihiisa maanta wuxuu garaacay $100. dadkii la socday 6 bilood ka hor $65 garaamkii markuu marayay waa idin sii sheegay dahabka $100 inuu gaari doono sanad gudihiisa. sababta keenayso waa maxay? sababta keenaysa ayaa waxay tahay financial structure-kii caalamka gebi ahaanba waa isbedelayaa. sidaad ka warqabtiin Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa hadda sii kala furanaya. markii horena waxay ahayd Ruushka iyo Chinaha iyo Mareykanka iyo galbeedka inay sii kala furanayeen. sababta uu u sii qaaliyoobayo lagana yaabo inuu $200 u gaaro sanadka soo socda gudihiisa ayaa waxa ay tahay in taajiriinta caalamka oo dhan ay maalgashanayaan dahabka. lacagta waraaqada ah qiimaheeda si waalan ayuu dhulka ugu sii socdaa. inkastoo ay jirto shaqo la'aan iyo maalgashigii dunida oo istaagsan, dowladihiina qasanadahooda waa ay xirteen. marka waxaan ku leeyahay haddaad dahab haysatid ha iska iibinin. fiidiyoyadeedii hore dib u raac saadaasheedana waad arki doontaa.